waxaa caawa sharaf noo ah inaan kaala qayb galno kugula fiidsanno kugula caweyno munaasabadan aad u samaysay baarlamaanka ayadoo ah mahadcelin ayadoo ah fursad la isku arko 2 bil kadib markii baarlamaanku uu ku jiray hawl adag caawa la isku wareysto la kala warqaado bil kadib markii madaxtooyada la doortay madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka labada gudoomiye ku-xigeen xildhibaanada sharafta leh saxaafadda howlwadeennada madaxtooyada ciidamada amniga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan ka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka nagala soo qayb gasheen xafladdan oon caawa ugu tala galnay bil kadib doorashadeennii inaan isku waraysanno u kala warqaadanno isugu nimaadno annagoo runtii ku kala maqnayn howlo muhiim ah aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa aqbalaadda aad si buuxda noo aqbasheen nagala soo qayb gasheen xafladda waxaan ka mahad celinaynaa sidoo kale muddadii 2 bilood aheed ee baarlamaanku jiray howlihii aad iyo aad muhiimka u ahaa ee baarlamaanku ay qabteen runtii waxaa baarlamaanku u shaqeeyey si la dhihi karo way ka duwan tahay howlo badan oo la soo mari jiray muddo kooban tallaabooyinka la qaaday oo dhinacyo badan leh sida haddaba uu sharaxay gudoomiyuhu qodob u dul istaagay waxaan leenahay xubnaha baarlamaanka sharafta leh aad iyo aad baa u mahadsantihiin baarlamaankii labaad ee galmudug runtii waxaan dhihi karnaa waa baarlamaan karti hufnaan iyo ka go'naan inay u adeegaan bulshadooda ay ka meel taal intaas kadib mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh muddadii bisha ahayd sidii aan hortiinnaba ka ballan qaadnay waxaan ka shaqaynaynay howlihii galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta isu doonidda isu jiidjiidka isqaadashada isu gogolgelidda taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wada hadal iyo walaalnimo aan u bandhignay xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay ama xaalad kastoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujinno wadajirka iyo wada hadalka iyo isu sabarka iyo isu tanasulka galmudug u baahan tahay waxaan rabaa halkaa inaan mar labaad shacabka galmudug meel walbay joogaan aan ka codsado inaan inta dhiman midnimo wadajir iyo gacmahoon isqabsanno aan ku dhammaystirno insha allahu tacaala qof walba oo reer galmuduga maanta galmudug waa cusub ayaa u baryey aan ka wada shaqayno aan isu wada taagno yaysan hawlo yaryar iyo waxyaabo aan lagu mashquuli karin naga leexinin ama noo muuqanin inaan waqti ku dhuminno waqtigayga qaaliga aan gelinno inaan ka guul gaarno galmudug cusub si buuxda horumar u samaysa si buuxda amni u samaysa si buuxda gacmaha isu qabsata ilaahay idinkii waana ku kalsoonahay inay dadkaygu meel walbay joogaan nagana aqbalayaan una taagan yihiin isuna taagi doonaan doona gudoomiye baarlamaanka sharafta leh waxaa noo ballanaa ilaahay idinkii inaan
u wada guntanno u wada istaagno u adeegidda shacabka galmudug oo muddada dheer ay ku jireen waxyaabo yaryar oo dib u dhac u keenaya maantana aan rabno haddii ilaa yidhaahdo nala kagana fadhiyo inaan annagu u dhaqaaqno waa u dhaqaaqnee aan ka guul gaarno garabna nala ku siiyo ilaahay idinka aad iyo aad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idin